waa dhab inaadan indhihiinna igu arki karin mana i arki doontaan laakiin waxaan u malaynayaa inaad wada garanaysaan dhammaantiin wax badanna aad iga maqasheen waxaan nafteeda idinkaga sheegi doono aad bay muhiim u yihiin sababtoo ah carabkayga ayuu warkaa ka soo baxayaa laga yaabay wax badan oo aadan ogayn in aan kuu sheego daqiiqadahan soo socda anigu ma garanayo xuduud mana kala saaro dadka uma aabbayeelayo qof weyn ama mid yar mid xanuunsan ama mid caafimaad qaba waxba ha iga fogaanina oo ha u malaynina inaan ahay mid qalbi adag wax dareema iyo naxariisna aan lahayn keliya anigu waxaan ahay addoon la soo amray ilaah baa i soo diray anigoo ah mid ka mid ah ciidamada ilaahay amarkiisa jalla wacalaa ayaan qaadanayaa mana khilaafayo sababtayda ayuu ku joogsaday ciqaabkii lagu ciqaabayay ama cadaabkii lagu cadaabayay muslimiinta China, Hindiya, Kashmiir, Boorma, Yemen, Liibiya, Suuriya iyo kuwa kale alla maxay arrintaasi farax gelinaysaa anigu waxaan joojiyey weeraradii Israa'iil yahuudda cuqdada iyo xaasnimada badan ee cadaawadda islaamka u haysa ay ku qaadaysay Gaza waxaan joojiyey dhiiggii ay daadinayeen carruurta yaryaraa ee ay go'doomiyeen arrimahaasoo dhan ayaan joojiyey ayagii ayaan isku mashquuliyey anigu waxaan ka yeelay dawladihii caalamka iyo shucuubtii iyo dadkii oo dhanba in ay qirtaan oo ay ictiraafaan inay yihiin kuwa tabar daran marka loo eego tabarta alle subxaanahu wa tacaala anigu waxaan xiray masraxyadii baararkii meelihii fasaadka shaneemooyinkii garoonnadii kubadda lagu ciyaari jiray maqaayadihii waaweynaa meelihii qoobka ciyaarka meelihii khamaarka lagu ciyaari jiray meelihii ribada bangiyadii balaayada iyo fasahaadka ka talinayay waxaasoo dhan waan xiray waah maxay arrintaasi i farax gelinaysaa anigu waxaan ka yeelay mulxidkii diinlaawaha ahaa inuu ogaado in ilaahay jiro kii ilaahay caasiyana waxaan ka yeelay mid toobad keena oo ka shallaaya dembigiisii waaw maxay arrintaasi sharafii tahay laakiin waxa ugu badan ee i murugelinaya masaajiddii ayaan xiray hay canaanina anigu waa laysoo amray oo keliya waxaa la yaab leh ehelkii masaajidda dadkii ku tukan jiray masaajidda ee daa'imi jiray dhammaan arrimahoodu waa khayr dhibaataa ku timid way sabreen khayr bay u noqonaysaa xilligay faraxsan yihiin oo ay barwaaqada ku jiraanna ilaahay bay ku mahadiyaan khayr bay u tahay dadka masaajidda aniga waxaa iigu sugan cibro iyo waana qaadasho waxaa laga yaabaa inay naftoodii xisaabiyeen oo ay dunuubtoodii ka noqdeen iyo gaabiskoodii imtixaanka la imtixaanayo mu'miniinta iyo ahlulmasaajid saraqaadid ayay aakhiro u noqonaysaa ama dembigooda oo la baabi'iyo adduunyada ayay u noqonaysaa ilaahay wuu imtixaanaa addoonkiisa si uu u fiiriyo hadba iimaankiisu halka uu marayo qof walbaana inta iimaankiisu dhan yahay ayaa la imtixaanaa sidaa daraaddeed haddaad aragto imtixaanka ugu socda waa fursad weyn oo aad uga heli karto ilaahay dembi dhaaf ee ku sabar dadow ha ila yaabina istaagidda aan ka istaagayo dhexdiinna anigoo qudbaynaya u toobadkeena oo u soo noqda ilaahay inta aanad dhexdiinnu ka istaagin ibliisku maalinta qiyaame isagoo qudbaynaya weliba mimbarkii naarta ku qudbaynaya oo dhahaya adinkaa i soo raacay waxbahay canaananina ee idinku iscanaanta weliba isagoo la hadlaya ahlu naarka sida ku timid qur-aanka kariimka ah suuratu ibraahiim وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم wuxuuna dhahaa shayddaankii marka amarka la xukumo eebba wuxuu idiin yaboohay yabooh dhab ah oo xaq ah anna waan idiin yaboohay waana idinku beeniyey wax xujo ahna idinkuma lahayn oon ahayn inaan idiin yeedhay oo aad i maqasheen ee hay dagaalina ee dagaala naftiinna aniguna idinma gargaari karo idinna iima gargaari kartaan anigu waan diiday oo waan ku kufriyey waxaad ila wadaajiseen horraan daalimiintuna waxay mudan cadaab daran
dad yahow yaanu idinkadinin wixii idin asiibay aniga hana u malaynina inaan ahay mid awood badan anigu waxaan ahay makhluuq tabar daran oo daciifa dhammaan waxa dhacaya waa dulmigiinna iyo dembigiinna ee maahan anigu awood aan leeyahay kan awoodda leh waa allah subxaanahu wa tacaala caalamkii oo dhan bandow baa saaran aniguna waxaan ahay shay ama walax yar oo daciifa ka waran haddii ilaahay amri lahaa dhulku inuu idin liqo ama uu samada fari lahaa inay biyo iyo daruuro idinku soo dayso amay dhagax idinku roobayso ama xitaa dab idinkaga yimaado ka waran xaalku sidee buu noqon lahaa ka waran haddii badaha la amri lahaa inay idin mahasheeyaan ka waran haddii laydinku sallidi lahaa bilyanno fayrusyo ah middaasi oo aniga iga faafid iyo halaag badan ka waran haddii dhulku idinla wada gariiri lahaa hal mar ka waran haddii dhulka dab dhul ama burkaano ama foolkaanooyin hal mar ka soo wada bixi lahaayeen dad yahow mid toobadkeenaa ma idinku jiraa mid ka shallaayaya dembigiisa midinku jiraa mid ilaahay dembidhaaf weyddiisanaya midinku jiraa anigu waxaan ku imid sababta dembiyadiinna ribada ayaad cuntaan waad isdulmisaan qaraabadiinnaad goysaan aabbayaashiin baad caasi ku noqotaan iyo waalidkiin hooyooyinkiin waxaad markhaati kacdaan markhaati been ah waxaad caydaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaad la timaadaan fawaaxishta kama hartaan munkarka waxaad faafisaan sinada waxaad dayacdeen arrintii diintiinnii ee aniga hay dagaala naftiinna bishii naxariista iyo soonka waxaad ka yeesheen bil aad madadaalataan waxaad daawataan barnaamijyo iyo musalsallo iyo tarfiihiyo waxyaabo naftu iska jeceshahay oo shahawaada jeer laydinka doonayay inaad waxyaabaha xunxun uga mashquushaan soonka iyo cibaadadiisa xuska alleh iyo weliba salaad tukasho waxaad ku hor ictikaaftaan oo aad dhooban tihiin telefishinada hortooda ilmihiinna waxaad la daawanaysaan barnaamijyo aan waxba micnaa lahayn sidoo kale waxaad daawanaysaan qisas khiyaanooyin ka dhashay iyo weliba muuqaalo iyo codad iyo filimo la isi saaray oo laydinkaga dhigay wax dhaba markaasaad daawanaysaan oo wakhtigiinna ku luminaysaan furriinkii baa batay dhallinyaradii waxay ka carareen oo ka fogaadeen guurkii sharciga ahaa ilmihii waxaa lagu dayacay mugdi dhexdii iyo caalamkii fidnada masaajiddii waad ka haajirteen masaaxiftii waxaa ka buuxsamay boor garan maysaan waxa ilmihiinnu samaynayaan inta albaabada soo xirtaan ma ogidiin miyaa inay ku maashoodeen caalamka fidnada adinkuna waxaad ka daba wareegaysaan xoolo iyo ganacsi iyo lacag waan ka xumahay maxaan ugu dhici waayey kuwa dawaaqiidda ah kuwa kibirka badan ee dadka masaakiinta ah xukuma kuwa doonaya inay khiyaanaan amaba khiyaanay diintooda dadkooda iyo dalkooda kuwa masaakiinta dhuunta qabta kuwa masaakiinta aan u naxariisan kuwa awoodda u isticmaala dadka masaakiinta ah kuwa cuna xoolaha danta guud kuwa beenta ku qaraabta kuwa dadka magacooda wax ku raadsada kuwa xakuma dadka masaakiinta ee ciqaaba kuwa xabsiyada ku ururiya culummada kuwa badan oo aan halkan ku soo koobi karin laakiin xigmadda alle subxaanahu wa tacaala way ka xeel dheer tahay middaa waxay keentay inaan noqdo xanuun ku faafa meel walba oo aan burburiyo awooddii iyo kibirkii iyo hubkii ay ku faanayeen iyo ciidamadii iyo warshadihii iyo burjyadii dhaadheeraa hoteelladii waaweynaa ee daruuraha taabanayay xoolihii iyo ganacsigii ay ku faanayeen ayaan burburiyey waxaan ka dhigay mid ay ka cabsadaan oo ay afka ka xirtaan haddaba ugu dambayn waxaan idin leeyahay ilaahay u soo noqda oo dembidhaaf weyddiista ilaahay wuxuu ku yidhi qur-aankiisa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا u soo noqda ilaahay wax walibaa wuxuu noqon doonaa mid quruxsan anigu waxaan ahay addoonkii suulayay ee baabi'i doona korona صلى عليك الله يا علم الهدى